degmada Hiilwaa ee gobolka Banaadir oo ay ciidamada ammaanku ka wadeen howlgal lagu xaqiijinayo amniga degmada ayaa waxa xalay saqdhexe kormeer dhiirigelin ugu tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre isla markaana uu ku ogaanayay sida u socdaan howlgallada ciidanka ammaanku ay ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir. ra'iisul wasaare Khayre ayaa waxa ku heliyay kormeerka uu xalay ku tagay degmada Hiilwaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga taliyaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ciidanka howlgalka ku jiray waxa uu kula hadlay saldhigga booliiska ee degmada Hiilwaa waxa uuna ku dhiirigeliyay siday u gudanayaan waajibaadkooda qaran isla markaana uga mahadceliyay shaqada wanaagsan ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed maadaama ay yihiin kuwa lagu seexdo hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo caruurtiina inaad difaacdiin idinka la idinka rabaa. waxaan rabaa inaan idin weydiiyo mushaarkiina ma qaadatiin bil walba qaateen askartaan rabaa inaan ka maqlo in badan miyaa tiri ma hubtid bil walba maaha miya waa maadsantahay. markii uu soo dhamaaday kormeerka amniga ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre afartii habeenimo ee saqda dhexe ayaa waxaa si wada jira warbaahinta qaranka ula hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Siciid Muuse ayaa sheegay in kormeerka ra'iisul wasaaruhu uu ku tagay degmada Hiilwaa ay qayb ka tahay qorshaha madaxda qaranku ay ku dhiirigelinayaan ciidanka ammaanka maadaama qorshaha xukuumadda nabad iyo nolol uu saldhig u yahay amniga. gaar ahaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo shaqaalaha habeen iyo maalin u taagan inay tabiyaan shaqooyinka qaranka loo hayo iyo shacabka Soomaaliyeed. waxaa naga go'an dawladda nabad iyo nolol xukuumadda nabad iyo nolol in aan mar walba ka shaqeyno amniga magaalada Muqdisho iyo gobolladoo dhan. taasi waxay cadeynaysaa inaan caawa annaga iyo ra'iisul wasaaraha nagu hogaaminayay socdaalkii aan ku tagnay Hiilwaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Bashiir gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa degmada Engineer Yarisow dhammaanteen iyo tiimka oo dhan waxaan isku bahaysanaa waxay ahayd inaan aragno shaqada socota iyo booliiska Soomaaliya iyo hay'adaha amniga sida wanaagsan ay u shaqeynayaan shacabkooda ugu shaqeynayaan. waxaan aragnay ciidan u diyaarsan in ay howlgal ka sameeyaan dhammaan xaafadaha magaalada Muqdisho. waxaana taas rabnaa inaan ciidan ku dhiirigelino in shaqada amniga ay mar walba sii dardargeliyaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow ayaa tilmaamay in howlgalkan xalay ka socday degmada Hiilwaa uu yahay mid joogto ah oo looga gol leeyahay in lagu adkeeyo amniga caasimadda isagoo shacabka gobolka Banaadir ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka. ra'iisul wasaaruhu wuxuu indhiis ku soo arkay sida shacabka iyo ciidamada uga wada shaqeynayaan sugidda amniga. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada amniga iyo shacabkaba runtii doorka wanaagsan ay amniga ka qaateen. sidoo kale waa sidaan hore u sheegnay si istaraatiijiga ayaa maamulada degmooyinka iyo ciidamaduba uga wada shaqeynayaan iyo shacabkaba. tan waxay noo horseedi doontaa in shacabku uu yeesho inuu amnigiisa sugto. saacaddan hadda joogno afartii saqda dhexe ama afartii aroornimona waa dareemi kartaan waxa heegan loo yahay waxay tahay shaqsiga Soomaaliyeed in la badbaadiyo. waxaana sii joogteyn doonaa howlgallada iyo kormeerada si isla xisaabtan dhab u yimaado. ra'iisul wasaaraha imaatinkiisa caawana waxayna tusaysaa sida ay madaxda qaranka uga go'an tahay. kormeerkan xalay uu xilli dambe ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu tagay ciidamada howlgalka ka wada degmada Hiilwaa ayaa qayb ka ah qorshaha lagu xaqiijinayo amniga dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho isla markaana lagula xisaabtamayo hay'adaha ammaanka ka oo la xiriira siday u gudanayaan waajibaadkooda qaran in lagu korjoogteeyo. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.